waxaa la yidhi doqona isla weyn haddaad iskala weynaato dadka bulshada aad ku dhex nooshahay dhibaatadeeda ay leedahay in si walaalka aad ula dhaqantid si wanaagsan si ku habboon sida qofka bini'aadanka aad u wanaaji kartid aad falkeeda gashid عليكم أصحاب تدمانتين وني سلامي هذا دينا ركيد كعصبت هاي سكر سراب يسار وحوا وحني شيء ما توحن كهلي ناس صدق خضب حسني ماذا يقف عقدة قوي يساد برشة أول نورا له أنت بابا ما أنت كهلي نادولا يراها هدين كبل مثلا لمبر ككوات قفك حسد كأه وحوا يقفك حسد كمان أنت وحوا مسألة قفات وحسلسة ما يستين وحوا كحسدايا mar oo wax kasta kugu sameeyo nin walaalka in sixirta laga yaaba in wax intuu kula kacda laga yaaba marka sideeda banaan barnaamijka leeyahay xasinimadu ma fiicno waa inaan aad ugu degtoonaana dadkeena bulshadeena aan ku wacyi gelinaa xasinimada waxyaabaha leeyahay waa aad shay u xun qofka bini'aadanka inaad xasididna ma ahan in si walaalka aad ula dhaqantid si wanaagsan si ku habboon sida qofka bini'aadanka aad u wanaaji kartid aad falkeeda gashid waayo hadda qof walaalka aad maanta xasidid wax hadda aad wax weyn oo ka faa'iideysan ma jirto waayo xasinimada qofka bini'aadanka intaad xasdi lahayd waxa u dhaanta adigoo shibka dhaho qofkan iska salaamo yiraahdo waxaan laakiin maanta qof walaalka aad xasaday wax kasta ku sameysay wax baad ku dalbatay jiro sideeda banaanba qofka bini'aadanka nin hadda aan sheekh ayaan dhageysanay ayaan dhaxdaas marka adiga wuxuu joogay Sacuudi Carabiya uu joogay marka wuxuu ka hadlay qofka xasadka ah wuxuu yiri nin ayaa takhtar galay yiri barnaamijka sidan igu soo gaabay takhtar galay marka kaliyaha dhammaan wax dhan ayaa wada fadhiistay markaas uu yiri ninkan muxuu ahay ninkan markaas uu yiri lambarkaas ninkaas ila hadal markaas uu yiri nin wasaas ku dhahay hebel ma taqaana waan aqaana way hebel noocaas markaas uu yiri 3 sano ayaan ilaahay ka toogay ninkaas marqaatin beelana ay ugu noqdo yiri marka qofka bini'aadanka حسدد أو قف حسد أكون نقطة ولا في عينها قفك ورالك أنا وناجسد أنت وناجي كرت أد وناجسد أنت بالآدم قفك وروح الدنيا وينك ما أنت نول بالرمان نورا حد سيدا جن عذر ما أنت ملايين الصوماليات بلايين بقول الدنيا دمتي تبر ملاهم ضد بالآدم ودبك وحريال أما هاي تبر علينا مجرته مركو حاول أكسن إن تسك إلى لسد وحيابه لي راح حسني ماذا حديد حسني ما أتكون قنتيد وح الدوي أن قرب مد فائدة من نقنيسيد برنامج كلا بعضهم كهلي نقنيا قف بالآدم كعقد الدخل مسألة قف ولا شيء سيد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شيء قف كورالك عديد عقد دلو تهي سنين تأي خميس ومد إله سبحانه وتعالى ومديسه والعافية لكن لو وقفوا بالآدم كالعافين وعيتها لو وقفوا بالآدم أما قرابة أما سكلا أما سكولة أيال لما عافية وأيا لبضان قف أقدر أسكوها إلا يكيه شيء أيال السوية مرك ولا ريال وحني شيء أنا أقدر أسكت دايسيانا عاد في رسالة ميل كست أو وح كست كهبوين الله فيريو وأيا قفك بالآدم كهداد أقدر أهيست walaalka waxaad arkaysaa laba qof oo bilaadan oo laba ganacsi isku laba dukaan isku walaalka la hadlayni iskala weyn kan kale iskala weyn yahay waa laga fiican yahay waxa wanaagsan in aqoonta la iska ilaaliyo qof kasta oo fiiriyo war maxaa horta adduunkan ilaahay ku keenay ilaahay in caabudid walaalka iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dad qaraabo goysid ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisa kugu sheegay adan qaraabo goysid aad noqotid ilaahay inaad goysid ka dhigantahay because inaad qaraabada goysid ma ahan inaad ilaahay xariirisid إلهي قاعد شنتها وقت الصلاة دكتور عقدة إسكت دايست أيه كوها بنتا هدي دائما أنت لما أنت أنا وحنا سمينا وحنا أنا قاعد سدانة أنا قاعد ما أنت تاجر ولا الكل لما هلا السنة ولا الكل عقدة إسقلية ولا في عيا أنت ستودك إسكوك جارانا عقدة الإسكو هاينين وحد أركيس مسألة تدك سيده هيرميغ وبدن لبا ويل اصل طلعت بيرها اصل فلانايو كان لبا دور سنه اصل هلينا غوري دب اصل اكشنايو اصل ما هلينا marka walaaliyaan inuu qodada la iska daayo qodada qofkan bil aadanka in alla inta qofkan qodadiisa ama jiroodkiisa iska ilaali kartid iska ilaalisid ay baashu ka boontahay hadan mas'alan mid saddexaad u galno saad ula noolaaleed bulshadaada ama dadka aad ku dhaxnooshay saad ula noolaaleed waxa la yiraahdo doqona isla weyn haddaad iskala weynaato dadka bulshada aad ku dhex nooshahay dhibaatadeeda ay leedahay in dadka aad bulshadaada aad ku dhex wanaagsanaatid haddaad tiraahdo noloshaada aad meel dheer ka fiirsatid wax kasta
noqoto bulshadaada si fiican u dhex noolaatid qof laga dhex yaqaano qof mujtamac iyo sharaf ku dhex le aad ahaatid laakiin haddaad bulshadaada sharaf ku dhex lahayn waxa waaye dhibaatadeed ay leedahay qofka bini'aadanka qofa iska jir maanta sidan masalan iska been badan iska wax badan bulshadiisa aan wax mujtamac iyo wax aan ku dhex lahayn waxa waaye iska daaya qof bini'aadan aysan aaminin iska dhaaf waalidkii dhalaan inta aaminin marka bulshadiina inay mujtamac ku dhex lahaataan si wanaagsan ugu dhex noolaataan inta qof bini'aadan ay ku dhex noolaa karto ku dhex noolaataan waayo maanta waxa weeye waxaa laga yaabaa wadanka waad ka soo tagtay wadan kale aad joogtaa waa inaad bulshadaada ku dhex nooshahay waayo haddaad bulshadaada maanta ku dhex nooshahay si wanaagsan inaad wax u fiirisid hadda laakiin tira waraartay aniga maxaa iga galayo sidaan u noolaanaya waxaas waa laga fiican yahay inkastoo 100% dadka ay yihiin dad islaam ah haddii in laisku gargaara laisku naxariisto 100% haddii aad maanta aad isku naxariisaninaha aad wax aad samaynin aad ay u dhib badan tahay waayo in isku naxariisatina qofka alla nooshahay si wanaagsan ku noolaada qofan uu ka aaminin maanta si wanaagsan aad wax walba u noolshahay marka waxaan ii sheegay dhamaantiin asxaabta waxa waaye insha Allah meeshan aynu joogi doontaa meeshan ayaan ka sii wadi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay isku soo noqod marka hadduu Ilaahay waxa waaye halkaas ayaan u baxayaa